magaalada Madiina waxa lagu arkay nin la yaab leh wadooyinka magaalada ayuu wareegi jiray asagoo daldalaya hadal uusan qofna fahmayn wuxuuna sheegi jiray inuu yahay nin cajiib ah oo dadka fikradahooda akhriya dadka qalbigooda waxa ku jira oo ay ku fakarayaan ayuu akhrinayaa sidoo kale qofka gadaashiisa jooga inuu garanayo asagoo aan fiirin markii la fiiriyana aad ayuu u cabsi badnaa ninkan la yaab kale saxaabigii weynaa ee Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wuxuu Ilaahay ugu dhaartay ninkani inuu yahay Masiixu Dajjal nabigu sallallahu alayhi wasallamna waa uu arkayay oo waa uu maqlayay markii uu Umar ibn Khattab ku dhaaranay ninkan inuu yahay Masiixu Dajjal kamana uusan hadlin nabigu sallallahu alayhi wasallam mana uusan diidin mana uusan rumayn wama yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hawo iyo malaawal nabigu isagama uusan dhawaaqi jirin ee wax walba oo uu sheego waxyi ayay ahaayeen maadaama uusan ku soo degin xilligaas waxyi arintaas adkeynayana nabigu waa uu ka aamusay sallallahu alayhi wasallam dhacdooyin badan oo dhex maray nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ninkan iyo asxaabtii nabiga ayaan muuqaalkan idan kula wadaagaya qisadan aadka u xiisaha badan waan rajaynayaa inay idan cajab gali doonto aadnan jeclaa doontaan inaan idin soo tabiyo qisooyinka noocan oo kale ah laakiin walaalahayga halkan ku xiran waxaan idan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saartaan sina share gareysaan si uu meel dheer u gaaro muuqaalkan ma baahan mid la idan ka dalbayo like-tiisa 20,000 oo subscribe-na hala gaarsiiyo hala searching gareeyo ninkan la yaab kale magaciisu wuxuu ahaa Ibnu Sayyad wiilkii ugaarsadaha intaan qisadan tabinaynana magaca Ibnu Sayyad ayaan u isticmaali doonaa ninkan Ibnu Sayyad wuxuu u dhashay qoys Yahuud ah oo magaalada Madiina xilligaas wax ka deganaa aabahan iyo hooyadan dhowr mar ayay isku dayeen inay awlaad dhalaan laakiin mar walba oo uu calool galo waa uu soo dilmayay hooyada waa uu ka soo dhacayay marar badan oo ay ilmo ka soo dilmeen kadib Ilaahay wiilkan ayuu u calool galiyay ilaa uu u dhashay Ibnu Sayyad wuxuu noqday wiilka kaliya oo ay qoyskan ilmo ka haystaan maalmaha kamid ah ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam asxaabta u qodbaynayay asagoo uga sheekaynayay fitnada Masiixu Dajjal iyo tilmaamaha gaarka ah oo uu leeyahay in badan oo asxaabta kamid ah waxa ku soo dhacay oo ay ku fakareen Ibnu Sayyad inuu yahay Masiixu Dajjal ka soo bixi doona maxaa yeelay tilmaamihii uu nabigu sallallahu alayhi wasallam sheegayay intoodii badneed ninkan waa uu leeyahay asxaabtii ayaana aad hadalladaas isula dhex marayn ilaa magaaladii oo dhan la gaarsiiyay waana marka uu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ku dhaaranayo ninkan inuu yahay Dajjal xilligaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu go'aansaday asaga iyo Umar ibn Khattab inay si qarsoodi ah isu raacaan oo ninkan u dhuuntaan hadalladiisana ay soo dhageystaan si ay u soo ogaadaan inuu yahay Dajjal iyo in kale nabiga sallallahu alayhi wasallam asagoo aysan cidna ogeyn ayuu gurigiisa ka soo baxay asaga iyo Umar ibn Khattab way soo dhuunteen geedo ay isku soo aadiyeen xaafadii Yahuud ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam soo galay asagoo dhuumanaya geed markuu ka soo baxana geedkii kale hore isaga aadinaya ilaa uu soo dhawaaday gurigii Ibnu Sayyad meelaha ayuu ka fiirfiiriyay nabigu sallallahu alayhi wasallam isla markiiba waxa uu helay Ibnu Sayyad oo dhabarka dambe ee gurigiisa jeega ugu jiifa oo daldalmaya oo ka hadlaya arrimo qariib ah oo aan la fahmayn markaas nabigu waa u soo dhuuntay waa u soo dhawaaday si uu wax uga fahmo waxa uu daldalayo si kedis ah waqti aan loo baahnayn waxa soo baxday Ibnu Sayyad hooyadiis ayaa guriga ka soo baxday nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Umar ibn Khattab ayay aragtay waa ay qayla dhaamisay Muhammad waxayna la yaabaneen meeshan oo ah xaafadii Yahuudda inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu joogo Umar ibn Khattabna nin qarsoomaya ma ahan 2 mitir iyo wax la jiro ah radiyallahu anhu Ibnu Sayyad hooyadiis qayladeeda ayuu la yaabay gadaal ayuu fiiriyay wuxuu arkay Umar ibn Khattab iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ag taagan nabiga sallallahu alayhi wasallam Ibnu Sayyad markaas su'aal ayuu ku bilaabay waxa uu ku yiri ya Ibnu Sayyad atashhadu anni rasuulullah Ibnu Sayyadow ma qiraysaa inaan ahay rasuulka Ilaahay Ibnu Sayyad wax yar ayuu fakaray kadibna wuxuu yiri ashhadu annaka rasuulul ummiyiin kadibna nabiga ayuuba su'aal ku soo celiyo waxa uu taagan yahay Muhammadow ma qiraysaa adigu inaan ahay anigu rasuulka Ilaahay nabigu sallallahu alayhi wasallam waa uu qayliyay waxa uu dhahay aamantu billahi wa rusulihi nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu isku dayay ninkan inuu tijaabiyo oo imtixaamo bal inuu akhri karo wax uu nabigu ku fikirayo oo uu qalbiga ku hayo iyo in kale kadibna nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhahay kelimo ayaan qalbigayga ku qariyay ee kelimadaas sheeg hadii aad akhrisid afkaarta dadka Ibnu Sayyad wax yar ayuu fiiriyay nabiga sallallahu alayhi wasallam kadibna wuxuu dhahay waxaad qalbigaaga ku qarinaysaa kelimada dukh nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Umar ibn Khattab ay ka tageen ninkii wadadoodii ayayna dib ugu laabteen inta ay wadada sii socdeen Umar wuxuu weydiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam maxay ahayd kelimadii aad qalbigaaga ku qarinaysay nabigu wuxuu dhahay waxay ahayd ad-dukhan bal u fiirso asaguna wuxuu dhahay dukh
wuxuu sheegay qayb ka mid ah kelimadii uu nebigu sallallahu calayhi wasallam qalbigiisa ku qariyey. taasi waxay ku tusinaysaa ninkan inuu akhriyo afkaarta dadka. kadibna dhacdadaas ayaa faaftay, asxaabta oo dhan ayaa isgaarsiiyeen, magaaladii oo dhan ayaa la gaarsiiyey. kadibna asxaabta waxay bilaabeen inay ninkan ka fogaadaan oo ka cararaan, meeshay uga jeedaanba ay ka leexdaan. ninkan dadkii magaalada oo dhan waa uu kadeeday, qof walba wuxuu isleeyahay wax qalbigaaga ku jira ayuu ogaanayaa, waa uu ka cararayaa. kadibna cumar ibnu khadaab ayaa nebiga u yimid sallallahu calayhi wasallam. waxa uu dhahay, rasuulka ilaahayow, ninkan dadkii waa uu kadeeday, asxaabtii kaadida ayuu ku dhajiyey, idan ninkan aan dile, asaga dhanba aan qoorta ka gooye. nebigu sallallahu calayhi wasallam markaas waxa uu dhahay, cumarow, haddii aad disho hadeer ninkan dijaalna uusan ahayn, waxba kama aanan faa'iidin. haddii uu dijaalkii saxda ahaa yahana maba awoodno inaan dilno, oo saban aakhirka xilliga u dambayda adduunyada waxaa dili doona nebi ciise calayhi salaam. kadib nebigu waa uu geeriyooday sallallahu calayhi wasallam. sanado badan ayaa la joogay. maalin maalmaha ka mid ah wiil uu dhalay cumar ibnu khadaab ayaa marayay mid ka mid ah waddooyinka magaalada madiina, isagoo danihiisa gaarka ah u socda. islamarkaasna waxaa ka hor yimid ibnu sayaad oo wejigiisa qarinaya, dhuudhuumanaya. ibnu cumar ayaa usoo dhawaaday ibnu sayaad, wejigiisa ayuu aad u fiirinayay, muxuu la daboolayaa wejigiisa. wuxuu arkay wejigii ibnu sayaad oo noqday acwar, yacni ishii ayuu beelay oo wuxuu noqday mid acwar ah, hal il leh. acwarnimaduna waa tilmaanta ugu weyn ee masiixu dijaal lagu garto. ibnu cumar ayaa dhahay markaas, ibnu sayaad, maxaa kaaga dhacay isha? maxaa kugu dhacay? ibnu sayaadna waxa uu dhahay, wallaahi ma garanayo wax iiga dhacay. ibnu cumar ayaa dhahay, meesha adiga kugu taalla ayaad aqooweysay wax ku dhacay, maxaa kaaga dhacay isha? kadibna hadalla adag ayay isdhaafsadeen, way isku xanaaqeen oo way iscaacaayeen. kadibna ibnu cumar ul ayuu gacanta ku watay, ibnu sayaad kii acwarka ahaa ayuu la dhacay ushi oo ku garaacay. ibnu sayaad markaas wuu xanaaqay, wuu carooday, aad ayuu u neeftuuray. kadibna jirkiisii oo dhan ayuuba buufiyey, wuxuu noqday nin xoog leh, cadow foolxumo badan oo argagax leh. ibnu cumar waa uu ka tegey, wuxuu u tegey umulmu'miniin xafsa radiyallahu canha, xaaskii nebiga ee xafsa ayuu u tegey. dhacdadii ayuu uga sheekeeyey inuu arkay ibnu sayaad oo acwar noqday, kadibna ay isdagaaleen oo ul ku garaacay oo ka xanaajiyey. xafsa umulmu'miniin radiyallahu canha waxay dhahday markaas, ibnu cumarow, ma maqlin miyaa xadiiskii nebiga sallallahu calayhi wasallam? ma ogid miyaa nebigu inuu dhahay, dajaal waxa uu ku soo baxayaa hal caro oo laga caraysiiyo, laga xanaajiyo? ibnu sayaad waa aad ka caraysiisay, hadda dajaal ayaadna soo saartay. kadib arrintan la yaab kale ayaa dhacday, arrin uusan qofna filayn. maalin maalmaha ka mid ah cumar ibnu khadaab oo la fadhiya qaar ka mid a asxaabta, waxaa si kadis ah u soo galay fadhigii ibnu sayaad, kii dijaalka ahaa, ayadoo lala yaaban yahay suu ibnu sayaad ku soo galay fadhi cumar ibnu khadaab uu fadhiyo, asxaabtii iyo muslimiintii ay joogaan. waa uu soo tegey, cumar ibnu khadaab ayuu soo hor istaagay, kadibna waxa uu dhahay, ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. kadibna aad ayay ula yaabeen asxaabtu, siduu dajaal u muslimay, siduu ibnu sayaad u muslimay. lama ogeyn markaas inuu islaamkaasu dhab ka ahaa iyo inuu rabay inuu muslimiinta hadalkooda badan iska yareeyo. dijaala halkaan maray, dijaalkii xaal ninkan islaamnimadiisa cumar ibnu khadaab hortiisa ayuu ka cadeeyey. markaas wixii ka horreydana dhammaan asxaabtu waa ay ka kala carari jireen ninkan markay arkaan. waxaa ka daran maalin maalmaha ka mida waxaaba la arkay ibnu sayaad oo xajinaya, muslimiintii dawaafaysay ku dhex jira. markii xajka laga soo laabtana asxaabtii oo dhan ayaa meel fariisteen. dajaalkii waaba uu la socda, asxaabta ayuu soo dhex fariistay. soonkii, salaadii, xajkii, cibaado walba waa uu la wadaagayaa asxaabta. asxaabtu markii uu soo dhex fariistay dhammaantood meesha ayay uga kaceen, waa ay ka kala tageen ninkan. kadibna abu saciid al-khudriy oo nin geesi ahaa ma uusan kicin, halkiisa ayuu iska fadhiyey. kadibna abu saciid ayuu kusoo jeestay, wuxuu ku dhahay, abu saciidow, muslimiintu waa i dhibeen, hadalkii ayay iga badiyeen, mar walba waxay leeyihiin dajaalkii, dajaal ayaa tahay, way iga cararayaan. anigu sideen dijaal ku ahay? dijaal waa gaal, aniga nin muslim ah oo tukanaya oo xajinaya ayaan ahay. sidoo kale dajaal waxaa la sheegay inuusan wiilal iyo gabdho haysan, aniguna wiilal iyo gabdho badan ayaan dhalay, sideen anigu dijaal ku noqon karaa? ifahamsii, ii jawaab abu saciidow. abu saciid wuxuu ahaa nin maskax badan, wuxuu dhahay, ibnu sayaadow, hadda dijaal ma tihid soo ma ahan. waxyaalo badan ayaan kuu soo bandhigayaa, tilmaamo badan ayaan kuu soo bandhigayaa, ka waran haddii aad noqoto dijaal. ibnu sayaad wuxuu dhahay, xitaa haddii aad igu aragto tilmaamo noocaas ah, anigu dijaal ma ihi. tilmaamahaasoo kale inaad igu aragto waa laga yaabaa, laakiin anigu dijaal ma ihi. dijaal sideen ku noqon karaa? waa la joogay maalmo, sanado, bilo ayaa la joogay. ibnu sayaadna muslimiinta ayuu ku xisaab yahay, muslimiinta ayuu ku dhex jiraa, waa uu la tukanayaa, la cibaadaysanayaa. heer wuxuu gaaray uu dagaalada ka qayb qaato oo muslimiin ka garab dagaalamo isagoo seeftiisa wata. waxaa la yidhi weliba arrintan arrin xaqiiqo ah waaye, dajaal markii saban aakhirka la gaaro dhammaan wiilashiisa iyo gabdhihiisa
waa ay dhimanayaan waa ay geeriyoonayaan marka arinta dhacdada la yaab kale waxay dhacday markaan maalmaha ka mid ah ayay muslimiintu dagaal aadeen ninkan seeftiisa iyo faraskiisa ayuu wataa dagaalka ayuu dhinac uga jiraa muslimiinta ayuu la dagaalamayaa asagoo muslimiintii ka garab dagaalamayay oo la socday ayaa hal mar la waayay meel uu ka baxay hal mar ayuu mirqay waa qarsoomay muslimiintii waa ay raadiyeen meydadkii ayay ka raadiyeen waa ay ka waayeen asxaabtii waa laga raadiyay dagaalamaysay waa laga waayay magaalada ayaa loo laabtay waa laga soo waayay xaguu galay ibnu sayaad xaguu ka baxay hal mar ayaa la waayay ilaa maantana lama garanayo meel uu aaday muuqaalkan ugu yaraan 3 qof asxaabtaada kamid ah u share garay channelkan subscribe dhaha ha iloobina asxaabta qaaliga ah